السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواada walaaleyna qiimiga badan oo channelkeena Zack Multimedia muuqaalkani maanta wuxuu ku saabsan yahay su'aal aan kaga jawaabi doono walaalaha kamid ah kaasoo iga soo yiri weydiiyay dhanka iyo WhatsApp-ka runtii su'aashana waxay ahayd sida loo sameeyo brush transition xaqiiqatan haddaad fahmi leedahay brush transition wax loola jeedo waa midkan hadeertan aad u jeedo oo muuqaalkayga sidaan yar yeelay kaasi ayaa waxaa loo yaqaanaa brush transition xaqiiqatan dhowr way loo sameeyo way yar jirtaa laakiin waxaan ku samayn doonaa qaybta iyo brushka waxaan ku samayn doonaa Adobe Illustrator-ka haddii aadan adeegsanin Adobe Illustrator-ka dib malaha waxaad kala soo degi kartaa Google-ka adigoo ku qorayo brush.png kadib steps-ka aan mari doono iyo adiga midkaad mari doonto waa isku yara mid ah markii aan kusoo yara samaysano faylka brushka ah Adobe Illustrator kadibna waxaan yara geyn doonaa dhanka iyo Adobe After Effects-ga marka asxaabta qaarkood ayaa waxay is yar weydiinayaan anaga ma adeegsano Adobe After Effects-ga waxaa laga yaabaa marka kuwaasi inay yar adeegsadaan Adobe Premiere Pro-ga marka insha Allah videogan qaybtiisa dambe ayaan ku sharxi doonaa dhanka iyo Adobe Premiere Pro-ga faylkani waxaan transition-kiisa ama motion-kiisa aan ku samayn doonaa Adobe After Effects-ga marka ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta markaan usoo gudubno dhanka iyo computer-ka ugu horreyn hadeertan waxaan soo furanaynaa software-keena Adobe Illustrator si aan ugu samayno brushka haddii aadan Adobe Illustrator aadan adeegsanin kaliya Google-ka ayaa waxaad ku qoraysaa brush.png halkaas ayaad kala soo degi doontaa ugu horreyn hadeertan waxaan soo furanaynaa Adobe Illustrator version-ka aan adeegsanayo waa 2020ka markaan Adobe Illustrator-ka aan sidaan usoo furno ugu horreyn waxaan leenahay file si aan u samayno brushka kadibna waxaan kasii dooranayaa new markaan new aan dhahno kaliya meeshan waxaan leenahay brush settingska waxaan ku shaqayn doonaa waxaa waaye 1920 kadib waxaan leenahay create kaliya waxaan isla ogaanaynaa sida ugu fudud ee loogu samayn karo kadibna waxaan kasii dooranaynaa qaybta brushka brushka markaan sidaan ugu doorano kaliya marka qaybtan ayaan furaynaa brush definition markaan furno sida u jeedo nooguma yar jiro kadib waxaan kasii furaynaa brush libraries kadibna waxaan kasii tagaynaa vector package kadib waxaan leenahay hand draw markaan hand draw aan dhahno isla markii marka meeshan wuxuu noogu soo bandhigayaa brusho fara badan ku yar jira laakiin kuwa aan rabnay ilaa iyo hadeertan kuma jiro kaliya qaybtan gadaal ayaan u naqanaynaa marka waa kana midkan ayaan adeegsan doonaa vector-kani brush vector-kani ayaan adeegsan doonaa kaliya click ayaan ku siinaya waa dooranaya meesha aan screen-ka aan ka rabo ayaan tagayaa marka ugu horeysa shift ayaan qabanaya kadibna straight line waan ku soo yar jeedaya sida u jeedo cabirkiisa wuu yar yahay marka cabirkiisa ayaan weyneynayna kaliya waxaan tagaynaa stroke ayaan waxaan ka yara dhigaynaa 4 kadibna hadeertan aan ku soo yar jeedno sida u jeedo hadeertan waa cabir iska yara macquul ah kani marka xoogaa yar straight ayaan ku samaynaynaa waa jeedina sida u jeedo marka brushkan hadeertan aan samaynay ayaan copy ka qaadanaynaa kaliya waxaan leenahay alt kadibna qaybta hoose ayaan usoo jeedaynaa markaan sidaan aan u samayno kadibna labadooda ayaan select saaranaynaa xoogaa yar shift lama qabanayno inta ayaan usoo yar jeedaynaa marka hadeertan sida u jeedo waa qaab aad iyo aad u qurux badan ayuu noogu yara sameeyey kadib marka waxaan leenahay file kadibna waxaan kasii dooranaynaa save as haddaad rabto png waad u save garaysan kartaa haddii aad rabtana waxaad u save garaysan kartaa qaabka Adobe Illustrator file ah marka anaga Adobe Illustrator file ayaan doonaynaa kadib marka folderkan u rabno ayaan keensanaynaa kadibna save ayaan iska leenahay kadibna okay ayaan leenahay markaan folderka ayaan rabnay aan keensano kadibna okay ayaan iska leenahay haddii aad rabto inaad png aad u save garayso kaliya waxaad leedahay file kadibna export as meeshan ayuu kuugu soo bandhigayaa waa intaas kaliya hadda brushka waan soo yara samaynay hadeertan waxaan usoo gudbaynaa qaybta iyo Adobe After Effects-ga Adobe After Effects-ga ayaan sidaa marka ugu horeysa usoo furanaynaa ugu horey marka waxaan samaysanaynaa new composition waxaan leenahay new composition kadib meeshan waxaan ku qoranaynaa brush adigu waa iska magacun ma aha wax muhiim ah kadibna waxaan dooranaynaa 52 second kadibna background color-ka aan rabno waa white kadib waxaan leenahay okay kadibna waxaan sii leenahay okay hadeertaa marka sidaad ugu jeedo meeshan waxaan nagula sameeyey composition kaasoo color white wata ugu horey marka waxaan soo gelinaynaa brushkii hadda aan soo samaynay brushka markaan sidaan aan brushka aan usoo gelino kadib marka candiga waa composition wax kale kama bedelaya kadib waxaan leenahay okay markaan hadeertan waxaan kusoo daranggareynaynaa qaybta iyo timeline-ka
marka sidaad u jeedo waa qaab sidaan ayuu kugu soo bandhigayaa. Ha u malaynay inuu marka uu yahay mid low quality ah, waayo quarter ayaa meeshan ii dooran. haddaan full ka dhigo si clear ah ayaad u arkaysaa. kadib marka faylkaani ayaa waxaa rabnaa marka ugu horeyso in aan asaga wax un dhaqaaq aan gelino, aan aad iyo aad aan u qurxino. ugu hore marka faylkaani waxaan sameynaynaa shape-kaasoo naga saacidaya in midkaani uu sidaan u dhexmaro. kaliya hadeertan iska yara hubi inuusan brushka ku doornin. kaliya markaas hadda waxaan leenahay shape-ka rectangle-ka ayaan dooranaynaa, kadibna waan kusoo daraagagaraynayna inta aan markaasi ka rabno. kadibna shape-ka ayaan xoogaa yar dhexda kusoo yara aadinaynaa. hadeertaa marka meeshan sidaad ugu jeedo waxaan sameynay shape cusub. marka shape-kaani sidaa u jeedo wuxuu naga qariyey brushkii. marka waa midda aan doonayno, farsamo ayaan ku dari doonaa. ugu hore marka waxaad tegaysaa qaybta iyo effectiska. haddii aad ku yara qorto DI waxaad ka yara dooranaysaa kaliya turbulent displays. inta ayaad ka dooranaysaa. kani waayo marka effectiga aan doonayno waa midkan. haddii qaybtan effecti presetka uusan meeshan kaaga soo muuqan, kaliya Windows ayaad leedahay, kadibna effecti and preset. marka effectigaani ayaan soo yara jiidaynaa. waxaan kusoo yara duldeynaynaa shape-ka hadda aan sameynay. ugu hore marka sidaad u jeedo shape-kii qaab sidaan ayuu noqday. marka ugu horeysa qaybta displacementiga ayaan furaynaa, kadibna waxaan kasii dooranaynaa horizontal. markaan horizontal aan ka doorano qaybtan amountiga waxaan leenahay 1000 ayaan doonaynaa. markaan 1000 aan ka yara dhigno qaybtan size-kana waan soo yaraynaa. adiga tusaale adiga 5 ama 4 oo kale aan ka yara dhigno. marka sidaa u jeedo qaabkii brushkii oo kale ayuu u sameynayaa. marka qaybtan lowga ah aan furno, kadibna high aan ka yara dhigno. markaan intaasi aan sameyno, adigana ha ku badanin kan. adiga tusaale ahaan 1.2 oo kale. kadibna kan angalka ayaad u bedeli kartaa. aniga marka hadeertaan ma rabo inaan angal iyo waxyaabahaas aan yara bedelo. qaab sidaan waa adiga waa enough. kadib marka shape-kan ayaa waxaan gelinayaa transition. waxaan leenahay B position, kadibna keyframeskiisa ayaan yara daaraynaa. markaan keyframeka ugu hore aan sameyno, kaliya hadeertaan play heat-ka ayaan xoogaa seconds ayaan soo yara baxaynaa. kadibna qaybta right-ka ayaan u wadeynaa. qaybta right-ka ayaan u wadeynaa oo ilaa iyo banaanka ayaan keenaynaa. markaan hadeertaan brushkii korkiisa shape-kii sidaan oo noo noqdo, sidaa u jeedo play markaan dhahno xoogaa waa iska yara full. waadna dareemi kartaa kombiyuutaradan in low qaarkood ay yihiin. markaan hadeertaan aan sidaan aan sameyno oo shape-kii sidaan aan ku sameyno, kaliya qaybtani toggle-ka ayaad ku dhufanaysaa haddaadan u jeedin track mat-ka. kaliya markaan hadeertaan waxaan leenahay meeshani nonka ayaan furaynaa. waxaa laga yaaba marka koowaad inay sidaan ay ku tahay. kaliya waxaad leedahay toggle switch. markaad dhahdo qaybtan iyo track mat-ka brushka ayaad furaysaa. markaad brushka nonkiis aad furto waxaad leedahay alpha inverting mat. hadeertaan bal fiiri marka sidaan ayuu noqonayaa. shape-kii dhan waa la yara qarinayaa. marka ugu hore marka shape-kaani keyframeskiisa aan yara qurxino. marka ugu horeyso labada keyframe ayaad dooranaysaa, kadibna waxaad leedahay right click, kadibna keyframe assistance, kadibna easy kan sidaas aan u doorano. kaliya hadeerta waxaan ku dhufanaynaa graphic editor. macnaha qaabka speedkiisa ayaan yara sixi doonaa xoogaa yar. kan dhib ma lahan, haddaad rabto xitaa ma u baahnid, laakiin 10 ayaan kasoo sameyn doonaa qaybtan iyo graphic editor-ka. inta badan wuxuu u muhiimsan yahay qaybta iyo keyframeyada. hadeerta marka keyframeka motion qaabkan oo kale ayuu sameynayaa. xoogaa waxaad u maleysaa inay aad iyo aad u kala fog yihiin. aan isku soo dhaweyno. marka haddii aad rabto qaab inuu ka soo baxo oo hadeertan qaab furid waaye, haddii aad rabto qaabkii endiga inuu dhammaadana 2 keyframe ayaad inta ku sameynaysaa B positionka. kaliya shape-kaani ayaad soo celinaysaa. laakiin aniga hadeertan ma rabno, qaabkan kaliya ayaan ka rabnaa. xoogaa yar labada keyframe aan isku soo yara dhaweyno. markaan intaasi aan sameyno, ugu hore marka labadani shay ayaan precomposition ka yara dhigaynaa. kadib marka waxaan leenahay labada shay aan select sidaas u saarano, kadibna right click, kadibna waxaan leenahay precomposition. precomposition kan waxaan ku qoranaynaa brush 1. markaan brush 1 aan sidaan ugu qoranay xoogaa yar size-kiisa aan soo yara weyneyno. scale ayaad leedahay, size-kiisa waad soo yara weyneyn kartaa adiga. kadib kani qaybta sare ayaan keenaynaa. xoogaa yar qaybta kore aan geeno.
markaan qaybta kore aan sidaan ku geeno kadibna waxaan sameynaynaa copy ayaan ka qaadanaynaa brushkan waxaan leenahay control D. Control D markaan dhaano another brush ayaan ula sameynayaa kan ayaan rename leenahay brushkii hadda aan copy gareyno waxaan leenahay number 2. markaan number 2 aan sidaas u dhano haddeertaan labadii shape ama labadii brush markaas way isdul saaran yihiin xoogaa yar waxaad leedahay brush 2ga adigoo joogta ayaa P taabanaysaa qaybta hoose ayaad sidaan ugu soo yara degaysaa kani marka sidaad ugu jeedo qaybta hoose marka sidaan aad ugu soo yara degto haddana control D ayaad leedahay brush 3 ayaad sameynaysaa haddana brush 3 ayaad furaysaa B positionkiisa haddana qaybta hoose ayaad sidaan u yara keenaysaa marka brushkan dhexda ku jiro ayaa waxaan rabaa inaan flip aan ku sameeyo qaybtan inta jirto inaan inta keeno qaybtanna inaan inta yara keeno kaliya asaga ayaan dooranaya brush 2ga kadib waxaan leeyahay right click kadibna waxaan kasii dooranaa transform kadib waxaan kasii leeyahay flip horizontal marka sidaad ugu jeedo dhammaantooda kani wuu ka duwan yahay marka xoogaa aan isku dhadhabayno B positionka anagoo adeegsanayno marka sidaa ugu jeedo marka dhammaantooda marka hal mar ayay isla soo galayaan marka taasi xoogaa yar waa laga yara qurux badan yahay waxaan sameynaynaa midka ugu horeeya brush 1ka inuu soo yara galo kadibna brush 2ga kadibna brush 3ga kaliya marka waxaad sameynaysaa qaybtani iyo layerkiisa ayaad xoogaa yar yar sikanaysaa xoogaa yar layerada leh inta sidaan u sikanaysaa marka saane ayuu noqonayaa marka isku soo yara dhabay si uu mid qurux badan oo kuugu noqdo marka meeshan sidaad ugu jeedo anaga ilaa iyo adiga 5 second oo kale ayaan leen ka rabnaa kaliya dhammaantooda ayaan dooranaynaa anigoo brush 3ga jooga ayaan midka kale imaanaya shift ayaan kili ku siinayaa kadib marka waxaan leeyahay control shift D cut ayaan ku sameynayaa oo layeradan sidaan u dhadheer mar rabo kadib mid walba waan iska delete gareynaya marka halaha transitionka kaliya ayaan u baahanaya marka meeshan sidaad u jeedo ilaa iyo 25 second ayuu soconayaa marka faylkana sidaad u jeedo ilaa iyo 5 second ayay ku yara eg tahay qaabkiisa kaliya marka kan iska fiiri baarkani kore in uu navigationkani uu ku og yahay qaybta uu videoga markaasi uu ku dhamaanayo marka qayb sidaasi markaan u sameyno kaliya hadeerta marka dhammaan brushyadani hal composition ayaan ka yara dhigaynaa dhammaan waa select gareysanaynaa waxaan leenahay right click kadibna composition pre-composition kadib waxaan leenahay all brush kadib waxaan leenahay okay markaan all brush aan dhaano marka sidaad u jeedo dhammaantood waan isku kay qabanayaa hadeerta marka videoga aan rabo inaan dhexgeliyo ayaan soo gashanayaa kadib meeshaas ayaan furayaa waxaan leeyahay projecti hadda videoga aan soo dhexgelinayaa markaan videoga aan sidaan keeno kaliya videoga qaybta sare brushka ayaan dhigayaa sida u jeedo marka brushkii dhammaan marka waa nagala qariyay meeshan sidaad u jeedo dhammaan marka waa nagala qariyay kaliya marka brushka ayaan waxaan leenahay mar un control D waan copy gareynaynaa kadibna videoga qaybtii sare ayaan dhigaynaa marka hadda sidaad u jeedo videoga qaybtii sare mid ayaa imaaday kadib marka waxaan sameynaynaa videoga track matkiisa ayaan furaynaa kadibna waxaan kasii dooranaynaa alpha mat markaa deertan sidaa u jeedo videoga dhexda ayuu ku jiraa marka qaabkani wanaagsan ayaad u sameyn kartaa waayo marka waxaan filayaa inaad qaabkani fudud aad fahanteen sida markaasi loogu sameeyo brushka Adobe After Effects-ga marka haddii aad tahay qof isticmaala Adobe Premiere Pro kaliya faylkani ayaan ku save gareynayaa haddii save gareyntaana aad rabto cashir hore ayaan ka sameeyay cashirkaas oo ah sida ugu wanaagsan aad ugu save gareyn karto Adobe After Effects muuqaal ku jira marka qaabkaas oo kale ayaad u maraysaa ama qaybtan sare ayuu kaaga soo bixi doonaa marka hadeertan waxaan gudbi doonaa dhanka iyo Adobe Premiere Pro-ga hadeertan waxaan usoo gudubnay qaybta iyo Adobe Premiere Pro-ga ugu horeyn videogeena waa kan brushkani hadda aan soo save gareynin waa kan kaliya hadeertan videoga waxaan kusoo yara duldeynaynaa qaybta iyo timelineka markaan videoga saan qaybta iyo timelineka aan u keenno ugu horeyn marka brushkii ama meesha yar aan ka rabnay ayaan sidaan usoo dragging gareynaynaa qaybtan ayaan sidaan ugu soo yara dhigaynaa xoogaa yar pluska ayaa taabanaysa haddii aad rabto in laguu soo dhaweeyo marka brushkii waa kan videogiina waa kana wuu ku hooseeyaa kaliya videoga ayaad dooranaysaa kadibna qaybta effectska ayaad tagaysaa kadibna qaybta surgeonka ayaad ku qoranaysaa track mate ayaa ku qoranaysaa kadibna effectigaas waxaad soo qaadaysaa kadibna waxaad kusoo yara duldeynaysaa videoga markaad videoga aad kusoo duldeyso kaliya videoga ayaad dooranaysaa
kadibna hadeertan waxaa imaanaysaa qaybta effect control markaad qaybta effect control aad imaado kadibna effectiga aad kusoo dartay ayaad meeshan ka raadinaysaa waa kan track mate kadibna qaybtan iyo composite using ayaad furaysaa waxaad leedahay luma lumaha after effect waa black and white laakiin kani wuu ka duwan yahay Adobe Premiere Pro kadib marka qaybtan mate-ka ayaad furaysaa brushka intoo ayuu saaran yahay ayaa lagu leeyahay sida u jeedo meeshan V2ga ayuu ku aadisan yahay brushka marka nonkan waad furaysaa waxaad leedahay V2ga ayuu saaran yahay marka meeshan sida u jeedo gadaal colorka aad rabto ama backgroundka aad rabto waad soo gashan kartaa sidee ayaad soo gashan kartaa hadeertan gadaal waa black brushkiina videoga ayuu ku dhex jiraa kaliya brushka iyo videoga aad isla dooranaysaa kadibna qaybta sare ayaad geynaysaa mar alaala markaad qaybta sare aad u geyso sidaan qaybtan iyo V1ka ayaad background markaas aad haysato ayaad soo gashanaysaa tusaale anaga hadda background ma haysano waxaan samaysanaynaa color kadibna new item ayaan leenahay color mate-ka ayaan ka dooranaynaa kadibna okay ayaan leenahay markaas aniga color markaas aan u baahnay guduud cadaan wax walba aad markaas rabto kadibna videoga qaybtiisa hoose ayaad background ka dhigaysaa markaas sidaan aad u dhigto hadeertan colorka ma soo muuqdo sidee ayuu ugu soo muuqan waay kaliya videoga ayaad dooranaysaa videogana sidaad ogtahay effectiga wuu ku dhex jiraa kadib marka waxaad tegaysaa qaybta effect controlska kadibna qaybtan luumaha waxaad iska fiirinaysaa inay ku doonan tahay qaybta mate-ka ayaad fiirinaysaa brushka intuu ayuu saaran yahay waa V3ga kadibna okay ayaad leedahay marka sidaasi sahlan ayaad ugu samayn kartaa Adobe Premiere Pro-ga qaabkan fududna ayaad u adeegsan kartaa marka waxaan filayaa su'aashan inaan sida wanaagsan aan ugu yar jawaabay teeda kale intaan bixin ka hor waxaad iska fiirisaa brushkan wuxuu ku yara egyaa videogan qaybtiisa sare marka qaybta kaliya aad rabto videogaaga inuu brushkaas soo yar galo kat soo yar siiso qaybtan kalena kat soo yar siiso marka sidaas sahlan ayaad u samayn kartaa adigoo adeegsanaya Adobe Premiere Pro sidoo kale haddii aad rabto videogaaga sidaan ayaad u sixin kartaa up iyo down sidaas ayaad u keeni kartaa haddii aad rabtana brushkana sidaad u jeedona qaybta sare sidaan ayaad u geysan kartaa brushka ayaad dooranaysaa qaybta sare sidaas ayaad u geyn kartaa haddii aad rabto videogaaga aad dooranaysaa brushka maclaa videoga isla qaadaya haddii aad ka heli faa'iiday muuqaalkan fadlan like garee lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana uga heli faa'iidaystaan haddii aad nooga yar cusub tahay nagu soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ka kadibna furanaya gambaleelka si ay kuu soo yargaaraan muuqaal walbo aan soo gelino waana ku mahadsan tahay daabashada muuqaalkan ugu dambeyntiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa inoo muuqaal kale guuleysta